guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka Togdheer ayaa kaalmo isugu jirtay biyo iyo raashin kala wareegay hay'adda Geeska Afrika oo kaashanaysa mu'asasatu Ciid bin Mohamed Al Thani qayb kamida kaalmada ayay si wada jir hay'adda iyo guddigu ugu qaybiyeen 250 qoys oo kamida qoysaska danyarta ah ee abaartu saameysay ee ku dhaqan degmada Qoyta. wasiirka dowladda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan, barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salmaan Ramaax, barasaabka xigeenka gobolka ahna gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka Togdheer Maxamed Deeriye Xayde iyo madaxda hay'adda Geeska Afrika iyo mu'asasatu Ciid bin Mohamed Al Thani ayaa ka warbixiyay kaalmada iyo meelaha ay ka kala timid iyagoo u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay kaalmadan inay soo gaadho gobolka Togdheer. oo maanta deeqdan ballaaran ee Qoyta lagu qiimeeyo inoo keenay waxa kale oo ku mahadnaqaynaa hay'adda Al-Qafatu qarni Afriqiya ee Sheekh Maxamed Ali Geedi madaxda ka yahay. waxa halkan gobolkan ka jirta abaar aad iyo aad u ballaaran oo dad iyo dunyaba saameysay. abaartaasu xoolihii dadku lahaa boqolkiiba 5 way dhamaadeen, 15 boqolkii soo hadhayna meelihii biyo ay ka cabayeen ma wax gaari kara mitaan. waxaanu u dhaaminaa 210 tuulo oo gobolka koobay iyo 13 degmo. marka waxaanu codsanaynaa mu'asasada Sheekh Ciid bin Mohamed iyo ciddii kaleba inay dadka u soo gurmateen gurmadkiinu balaadho gaadho. ma dhibta ka tahay in abaaru ku sameeyeen waddanka waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta inay gurmad ballaaran oo kii Suuriya loo sameeyo kala laynoo sameeyo ugu soo diray wafdi. marka waxay eegayaan dhibta ay geysatay abaaru ay eegayaan, laakiin maaha qasdigan safarkooda maaha inay wax qaybiyaan. waxaan yaray wax mushkilad wax maaha wax dadka ku filan maaha. إلهي واحد كرشين وحفر بضم إن شاء الله. أهالي هذه القرية والقرى المجاورة أسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن أهل الصومال. إخوانكم في مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية وأهل قطر سمعوا عن هذه المجاعة في أرض الصومال. هذه المنطقة يتوفر فيها الماء، فيها عبارة احتوازية تقريبا عمق 150 متر. من هذه المدينة تجتمع صهاريج المياه. قلت أم هذا يا مؤسسة إنه قلت مي نجا أو سامي نجلا قيب قال إنه هذا نرفض هاي كأركان بحويا ولي بدول كودويك وكله شيخ تسارك تقول كودو سهلا إلا جاري كردتك أي تجامد اللي جاري كرو وحن إلهي كبرينا إلهي يوم بوحن نجسار كرين إلهي رحمات تجتجين وشبه إلهي بامبرينا سأشلي كل ما ضوية دايما طبناها إن الدعاء سرنا إن مرنبا كني يتشبين شعبهان إيه حكومتهان وحنون ما هاد علمي المرنبا تنقلت قالتي نلا درنتي دم قشرة ولا لما كانتي إن السوق جاري إن الناس صعطوا dadkeenu la isku tashaday oo aan wax dawladda ogeyn oo buuran aanay jirin. waxaan idinku dhiirigelinayaa meel kasta aad joogtaanba sidii ay isu taakulayseen dhexdiina waxa idin dhex yaallaa oo qaybsateen dhari kaliya u wada shidateen galaanka isoo dhex marteen deeqsinimada iyo gobonimada aan leeyihiin aan ugu dhaqanteen inaad sii wadaan. Mustafa Ismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.